Assalaamu calaykum. Ku soo dhowaada kanaalka Daruuraha. Hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa ee waddanka Suudaan ayaa waxa ay weli wadaa baaritaan baaxad weyn oo ay ku soo saarayso hanti la sheegayo inay balaayiin dollar gaarayso oo uu si sharci darro ah u urursaday madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xassan al-Bashiir, kaas oo xilka laga tuuray muddo haatan sanad laga joogo, xabsigana loo dhaadhiciyey. Ilaa iyo haatan, dowladda Suudaan waxa ay gacanta ku soo dhigtay shirkado, guryo iyo dhulal uu lahaa madaxweynihii hore ee al-Bashiir, iyo qaar lagu qoray dad isaga ka agdhowaa. Waxaana afhayeen u hadlay hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa Suudaan oo lagu magacaabo Saalax Manaac uu warbaahinta u sheegay in hantidii ay sida sharci darrada ahaa ku urursadeen al-Bashiir iyo raggii ka tirsanaa nidaamkiisii lagu qiyaasayo 3 ilaa iyo 4 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Waxaa xukuumadda Suudaan ay sheegtay in ilaa iyo haatan lagu guulaystay dib u soo celinta hanti isugu jirta hoteello, xarumo ganacsi, dhul beereedyo baaxad leh iyo weliba boqolaal dhismayaal ah oo ku kala yaala caasimadda Suudaan ee Khartoum iyo magaalooyinka kale ee dalka. Saalax Manaac, ninka hogaaminaya ka daba-tegidda xoolihii uu sida xisaab la'aanta ahaa u yeeshay madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar al-Bashiir, waxa uu caddeeyey in hantida ay gacanta ku soo dhigeen ilaa iyo waqti xaadirkan ay ka dhigan tahay sida buur weyn oo baraf ah oo kale, iyadoo hantidan aysan ku jirin lacagihii sida tooska ahaa loo xaday, dhaqaalaha ay haystaan shirkadaha dhismaha iyo dhaqaalihii sida xisaab la'aanta ahaa loo xawishay. Ciidamada waddanka Suudaan ayaa 11 Abriil 2019 kursiga qasab kaga wareejiyey madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar al-Bashiir kadib 30 sannadood oo uu gacan bir ah ku maamulayay dalkaasi. Waxaana intii aan Cumar al-Bashiir xilka laga dejin muddo 4 bilood ah Suudaan ka socday dibadbaxyo isbedel doon ahaa oo ay shacabka Suudaan ku dalbanayeen in al-Bashiir iyo xukuumaddiisu ay xilka wareejiyaan. Ololahaasi ayaa ku dhammaaday in ciidanka Suudaan ay talada la wareegaan, Cumar al-Bashiirna xabsiga loo taxaabo si loo dhageysto dembiyo fara badan oo loo haysto. Golaha sare ee hoggaanka Suudaan oo ka kooban saraakiil militari iyo dad rayid ah ayaa bishii Disembar 2019 waxa ay gole u saareen in la kala furfuro nidaamkii hore ee madaxweyne al-Bashiir, isla markaana laga daba tago wax alle iyo wixii hanti ahaa ee uu lahaa isaga, qoyskiisa iyo kooxdii ka agdhoweyd. Waxaa kale oo lagu heshiiyey in dowladdan cusub ee lasoo dhisay ee muddo 3 sannadood ah oo kumeel gaar ah xilka hayso ilaa ay dalka ka gaarsiinayso doorasho cusub. Markii Cumar al-Bashiir jeelka lagu hubsaday, waxa kale oo militarigu ay soo xireen rag fara badan oo ka tirsanaa nidaamkii hore ee Suudaan, kuwaas oo lagu tuhmayey musuqmaasuq, waxaana lagu bilaabay baaritaan. Guryaha iyo dhulbeereedyada la soo celiyey ayaa waxaa lahaa Cumar al-Bashiir, dad ka tirsan qoyskiisa iyo la taliyayaashiisii kuwii ugu waaweynaa sida wasiiradii hore ee arrimaha dibadda iyo difaaca Cali Karti iyo Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen. Isla Disembar sanadkii 2019 waxaa al-Bashiir lagu eedeeyey musuqmaasuq, taasoo ahayd mid ka mid ah kiisaskii loo waxaana lagu xukumay 2 sannadood oo xarig ah. Tifaftiraha wargeyska At-Tayaar, Cismaan Miir Khani, oo muddo dheer wargeyskiisu wax ka qori jiray musuqmaasuqii xukuumaddii al-Bashiir, ayaa waxa uu sheegay in madaxweynihii hore ee Suudaan iyo kooxdiisii ay si weyn wax isu dabamariyeen, isla markaana ay lahaayeen khibrad aad u dheer oo ay adag tahay xitaa in si sahal ah lagu soo saaro hantidii aadka u faraha badneed ee ay dalka ka dhaceen, taasoo u baahan waqti dheer iyo khibrad aad u weyn. Dalaalka weyn ee guryaha, Cismaan Khalid, ayaa isna waxa uu sheegay in dhismayaasha haatan gacanta lagu soo dhigay ay ku yaalaan aagaga ugu guryaha qaalisan magaalada Khartoum, halka guryahaasi qaarkood ay saaran yihiin webiga Niil, qiimahooda maalgashigana uu aad u sarreeyo. Hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa Suudaan ayaa weli waxa ay wadaa baaritaan xoog leh, sida uu sheegay Saalax Manaac, oo xusay in ilaa iyo haatan aan la garanayn qiimaha dhabta ah ee hantidaasi faraha badan, taasoo u baahan in laga wareysto dadka khibradda u leh inta aan lagu wareejin wasaaradda maaliyadda. Sababta ay waqti dheer ugu qaadanayso laanta la dagaalanka musuqmaasuqa Suudaan inay kaga gungaarto arrinta baaritaanka hantidii faraha badneed ee uu ka tegay al-Bashiir
ayaa waxa ay tahay iyadoo dukumiintiyada dhulalkaasi iyo beerahaasi ee soo galay gacanta dowladda Suudaan ay aad u tiro badan yihiin, waxaana la sheegay in dukumiintiyadaasi keliya lagu qaaday ilaa 3 baabuur, baaritaankoodana ay u baahan tahay waqti aad u fog. dhanka kale, in hantidani faraha badan ee lagu raad joogo ay soo gasho gacanta wasaaradda maaliyadda waxaa ka horreysa waqti dheer iyo in marka hore la horgeeyo golaha sare kadibna loo gudbiyo garsoorka Suudaan. Waddanka Suudaan ayaa waxaa haysta dhibaatooyin dhanka dhaqaalaha ah oo ay ka mid tahay hoos u dhaca lacagaha ajnabiga ah, kuwaas oo dalka ku yar, sicir barar aad u sarreeya oo gaaray ilaa 92% sida ay warbixinadu sheegayaan. Marka muran la'aan waxaasi oo hanti ah oo lagu raad joogo ay soo galaan gacanta wasaaradda maaliyadda Suudaan, waxaa la filayaa in guryaha ay dowladdu soo dhigto suuqa xaraashka, halka shirkadahana loo bedeli doono kuwa danta guud ah. Hoteelada iyo beeraha ayaa iyaguna lagu rajo weyn yahay in lagu sameeyo maalgashi si dowladdu uga faa'iidaysato dhaqaalahaasi. Waxaa kale oo la sheegayaa in dhibaatada hortaagan hay'adda la dagaalanka musuqmaasuqa Suudaan ay ka mid tahay in hantidii ay lunsadeen al-Bashir iyo dadkii ka agdhowaa ay ku shubteen bangiyo dibadda ah oo xeerarkoodu ay dhigayaan inaan hantidaasi la siin karin cid aan ahayn dadkii markii hore bangiyadaasi dhigtay ee saxiixyadooda la hayo. Haddii aan eegno dacwadaha kale ee loo haysto madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Xasan al-Bashir ayaa waxaa ka mid ah xasuuq iyo dembiyo dagaal oo ka dhacay Darfur sanadkii 2003, taasoo ay ku dhinteen sida la sheegayo ilaa 300,000 oo qofood, waxaana al-Bashir doondoonaysa maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka. Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale sheegaysa in marka laga soo tago dadka loo haysto inuu laayay al-Bashir, haddana ay jirto in maleeshiyada Janjawiid ee taageerada ka helaysay dowladdii al-Bashir ay dagaallo sokeeyay ku barakiciyeen dad gaaraya 2,500,000 oo qofood. Sanadihii 2009 iyo 2010 ayaa maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka ee fadhigeedu yahay magaalada Hague waxa ay soo saartay amar lagu soo xirayo Cumar al-Bashir laguna horkeenayo maxkamadda. Waxaa kale oo jirta in maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka ee ICC ay dalal badan oo Afrikaan ah ku eedeynayaan inaysan ahayn mid cadaalad ah, isla markaana ay tahay maxkamad xukunta dadka Afrikaanka ah oo qura, halka wadamo ay ka mid yihiin Shiinaha, Hindiya, Ruushka iyo Mareykanka ay iska diideen inay ku biiraan oo ay qayb ka noqdaan maxkamadda Hague. Madaxweynihii hore ee Suudaan al-Bashir oo 76 jir ah ayaa afgembi militari haatan ka hor ku qabsaday Suudaan sanadkii 1989, isagoo kadibna dalkaasi gacan bir ah ku hayay muddo 30 sannadood ah. Intaasi waxaan ku soo koobaynaa warbixintii ay soo saartay hay'adda la dagaalanka musuqmaasuqa waddanka Suudaan oo sheegtay inay ku raad joogto hanti aad u fara badan oo waddanka Suudaan ka maqan oo lagu tuhmayo inay lunsadeen madaxweynihii hore ee Suudaan al-Bashir iyo dadkii ka agdhowaa. daruuraha